arrin yar aan ka dhaco gabadheydii hore ama saaxiibadeeda sida u taqaaniinba Queen Xafsa marka kow waxaan ku hormarayaa horta youtuberada Soomaaliyeed aan rabaa inaan ka hadlo weli khaasatan rag horta anaga Soomaali haddaan nahay iskuulkeena iska badan yahay marka aad leedahay yaa kuu baneeyay inaad sariir la kortid halo si fiican u dhigaysan aka rasmi rays la leeyahay hadeeg marka aad leedahay na yaa kuu baneeyay sariir inaad nin aana ku qabin la kortid adiga yaa kuu baneeyay nin aana ku qabin inaad iriborka ka hortagto yaa kuu baneeyay nin aana ku qabin guriga intaad kaystay shan gudahood inaad baraanka la sameeyay shafkiisa hoosta gashay adiga yaa kuu baneeyay nin aana ku qabin inaad inta adoo ka heesay xaflad inuu sida adigoo mara makaneeca amal oo qafiif adigoo xiran inuu saan ku wareejiyo shafka sax kugu qabto yaa kuu baneeyay maxamed baarasita moolbo aha na xabso kama maxaa la dhahay kama baqayso laakiin waxay taqaanta xishoodka iyo respectiga qof waliba guriga hooyadiisu kula soo koray oo kaga soo baxay weeyaan runtan ku sheegaya Soomaalidana waa la yaabaysaa qofkii ka xishooda ma ka leexdaan say doonaan bay ugu tuntaan runta markaa inay sheego rag iyo dumar youtuberada xinanta yar daba galay si xun u turjumanaya war qasab ma aha labada qof haday isqabin inay isla sii joogaan war qasab ma aha wax kaste in ma garanaysa ala fahmeeshan jira labadan qof inanku way is siisay wayna jeclaatay wayna istiri guurso laakiin qadarkii Allah dhacay shalay waad ogeydeen sidii aan raba in lagu noqdo gabadhii u furay maxaa la dhahaa CK in maxaa la dhahaayay CK baa furay amal aan lagu raadiyo oo meelaha loo jijidiyay gabadhii CK furay aan si lagu raadiyo haddaba filinkaas soo degay wiilkana si aan ku fanaan baa tahay aan noqon wada YouTube ku kala kici waa maxaa samaysan xabadan yar la sheekayso YouTube-ka ha ku dhaxgeyso wii qabaade ka bacdina waxaad samaysaa sida aan ku noqon haddaba Soomaaliyeed runtan inii sheegaya dadkan youtuberada ah ee wax inuu soo gudbinaya hal iska qabto dadkan youtuberada wax inuu soo gudbinaya wax wanaagsan hadii la soo gudbinaynin laagii sheerta siinaysan ka joojiya runtan u sheega qofka bilaadanka commentigiisa ayuu qofku youtuberka ana youtuber ah commentigiisa ayuu dib u akhriyaa commentigiisa haduu 100% negative ka helo wixii uu iska bedelaya haduu 100% uu ka helo ma garanaysaa wax wanaagsanna wuu ku soconaya wixii maalin kasta wada ogtihiin hooyo Soomaaliyeed baa la furaya amba la xumaynaya ragga Soomaaliyeed waxay ka dhigteen baayac mushtar sayladii bay noqotay haweenka Soomaaliyeed youtuber waliba raggu ha u darnaadaan waxaan afkayga soo marin kareenin inaan taayir ku caayay ku haystay isma lahayn anigu aad ka hadashid arrimahan oo kale isma lahayn anigu arrimahan oo kale aad ka hadashid way ani waad ogtihiin YouTube-kayga xogaa inaan baryahan ka gaabiyay sida runtiga iyo balaayiya carab iyo waxaan garanayn baan haya marka soo labisana sanaan soo fadhiisan buu wax nagu kacaya waa seexanayna caawa soo qasba wallahi marka almuhiimadu waxay tahay waxaan ka fadhiyay waayeen ka joogi waayay YouTube-ka furtidba arintii xabsa markaad tiraahid amba eegtid amba wax ku soo dhacaan waa dad inantii yarada haysta ee cunaya war maanta dadka youtuberada ah hablaha ugu yar laba weeyaan baan dhihi karaynaa ayaanita oo maxaa la dhahaa joogto Turkiga maxay ahayd Malaysia gabadha ayaanita u qoran tahay inay joogtaan u maleynaya Malaysia yes Malaysia ninka dhibaateyn jiray Ramadaantii iyo shiru kufso ka soo hadashay iyo xabsa maxaa la Queen Xafsa labadaas ugu yar youtuberada qofku markuu aan noqonayo horumar sameynayo ilaahay magac siiyay kor u socdo waxa taqaantaan inaad niyad jabisaan waxa taqaantaan in dhulka ku masaxdaan gabadha calafka Allah ugu hagaajiyo u duceeya hooyo Soomaaliyeed amba ina Soomaaliyeed weeyaan ilmihiino kala weeyaan dumarka waaweyn ee u soo fadhiisanaya caayaya waxa la ka xishooday inta yar ka xishooda wayartay wali 30 may gaarin 25 may gaarin way ka muuqataa guurka haduu ka xumaaday ha ku diganine u duceeya midda kale qaar waxa arkayay waalidkeed baa habaaray waalidkeed ma habaarin waalidkeed dad sharaf la weeyaan wayna la joogan magaalada wayna la degan yihiin
inantuna hadday wax soo guursatay nin soo guursatay amba single mother soo noqotay oo youtuber oo caan ah waxay jeceshahay maadaama dad badan iyo family iyo cid kasta soo booqanayso ay alashan bulshadana caan ka tahay waxay jeceshahay inay kaligeed meel degto say nafisto umadaana u soo dhaweyso waalidkeedna war way ka haysaa maxaa ina daba dhigay hooyadeed waalidka hooyadeed ba haysta waalidka aabeed xagaad ku aragtay aabeed iyo hooyadeed oo habaaraya xagaad ku aragta ma sheegi kartaa war isku xishooda gabadha nin horay kala tageen sanka ha ka marmarinina dadka waliba youtuberada ah ee caanka ah ee inta youtube-ka ka cararaan tiktok-ta leefka ku caytamaya gabadha yar bahdilaya oo kuwa comedy-ga u qorayaba war ilaahay ha laga cabsado laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah war waa dibteen hadday dharag u dhimato xabsi ku weyn amba ay stress ku dhacay waalato Soomaali baa waashay runtii xaqiiqada waliba haweenka Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed ba inaan taayir waalaya labada qof cad way isku yeelan karayaan wayna kala tagi karayaan labada qof way isu shukaansan karayaan mid bay ku khaldantay maxaa la kuwinta waxay ku khaldantay inay intay soo fariisto YouTube-keeda ay tiraahdo waa ninkayga waxaan arkaysiin baan feedhoodana laga abuuro konton leeyaana hadina la sasabto waxyaabo badan baan anagu magar dumar hadaan nahay aan u jilcsanahay runta marka ka hadlaya xaqiiqada waan beer jilcsanahay hooyeynana laga yaabo inuu dhaho waan iskuursanayna hadda wiigagan soo socday waa ninkayga dhah sagan sidoo caan ku raadinay illa fanaan buu hayo uu soo bixi waayay marka YouTube-kiisa dib u raadinay hadda ma fahmaysan waxaan inii sheegayaa intaasay ku khaldantay gabadhaas waxay ahayd inay tira jacaylkaygu waa kan iska barta insha Allah mar dhowna meherkayga dhici doona mar dhowna xafladda arooska ka soo qayb gali doontaan qofkan waa qofkan jecelahay asagana jecel yahay haduu ilaahay idmana waan dhici doona arooskayga laakiin saaxiibka aan hadda leeyahay waa kan hay igu soo degdegina dadka kale oo doonaya in ay soo shukaansadaan saas oo qurux badnay laakiin may dhicin wixiina waa qadar branki ayday wadan xitaa waxa ka dambe ka soo sheegi lahaayeen wiilkiiba Soomaha inta ka gaabiyay inaan kale qofka bilaadanka uu shukaansan karaya malaayiin gabadha waxa la yiri kun bay la sheekaysataa kowna way ka guursataa warshan hal habeena shan shukaansan kartaa lixna shukaansan kartaa xor baataan keligi laguma gudin inaad shukaasatid hadda ma fahmaysa marka casrigan la jooga bariga hore shukaansiga waa anaga markan waqooyinahay dee lamaba ogolayn inta gurigeed inay la timaado ama guriga waalidkeed la timaado ina meelaha iyo kaftirada iyo meelaha la isku balamsado mooyaan laakiin waxa la jooga wadan casriya haddana dadka koonfurta ayaa waxayna bareen dhaqan aan ka baranay waqooyi haddaan nahay qofka aad shukaansanaysid inaad guriga keensan karaysid anaga xagga koonfur bayna ku tamashay ka asadan waqooyina hadda ma fahmaysan muhiimadu marka waxay tahay gabadhu hadday gurigeedii keentay wiilku ceeb ma aha sariirtii hadday la fadhiisatay wiilkii oo sariirta istir meeshan baa qurux badan amba leerku ku badan yahay amba maxaa la dhahaa horeyba kalibadeeda ugu duubi jiray amba ma garanaysaa sariirta xaggeeda dambe foonkeeda dambe qurux badan xakan kaale fadhiisan ay tirina dee maaha in la isfuushana inta la soo fuulo la iska soo dhigay in la soo fadhiistay meeshii maaha bal waxaad ila daawataan oo ila dhageysataan dhagihiinana isiisaan naagti rasmi rays oo caayaysan hadday la dhageystaan شوف كعبة محرقة أيضا كيسي كعبة اسمه وعباية عبتوياش ورانا والله أنا هذه لك أرضها تقرصها تعمل أنا هذه أقول إذا عمص رسمي شغلة لو بيكور أنت يا عايشة جودس أيضا ولين كهات كتير لا فضيو أقول لين كهات سكوا بينا باية ونين بني عدد أنا كأول عليه شوق أفكاري جيش قلت نايا ريوال بصوت فرايا من كي جرى عندي أفكار كسر تاعي سو أنا تكلم في قامات كمال كهلا واسمين إنك أيس قبل هاجوري ولا سيحيي how come يا برانكس كل زمان كان how come ناسيري حبت كذا واحد وقولين كرا ما حساب شمو أوكي ماذا أقول شيء أرتبح عمرت كرسوني كل سكري مثلا نعرفك أنا أما كاميرا لا قصة أما كاميرا لا جلاش واي adigan ku dhibay wadigiisateen okay maxay tireen Soomaad aragtaan disa daryeela tukar ku dara Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma mahmaado disa daryeela tukar ku dara naagan hoosteedii iyo nolosheedii iyo jirkeedii iyo markay meelaha dhugdhugdhuglada aan war u haynin naag kale waxba kama sheegi karto naag isubta is video amba media waxba ka jirin ayaa hadalada dhigi karta
naa haddaba ila dhagayso oo ku raaxayso marka aad soo dhaweynaysay ninkii aan marka aan ku qabin Farxaan Yare bal waxaan ku soconaynaa markay joogtay airportka ay Farxaan soo dhaweynaysay sida ninka isku dul saaraysay iyo sida ninka uu marka xilliga uu na qabin waxa meherkeeda wala socotaan xilligii dambe dhacay ila daawada Oh my god. Allah. Oh, haye Soomaaliye runta aan isku sheegno Soomaali Mariyoli runta hal isku sheegno ma qabin ninkeedii maaha saaxiibkeed buu ahaa waad aragteen sida ugu soo orday shafka u gelisay haddana ninaan ku qabin ad ku dul ooyeysaa hadda u fiirsada ninaan qabin meher ugu xidhay ay ku dul ooyeysaa shafkiisa inta ku saxato haye markaasad inan yartaba ordaysaa waqtigeedii joog adeega inan yaro xilligeedii joogta waqtigeedii ku jirta ayaa daba ordaysaa saad u caaysa media leef kastaad soo gashid baad ku hadlaysaa ilaa kii shino cule ilaa kii hablaha naya waqtigeedii bay ku jirtaa kuwiin xabsa waqtigeedii bay ku jirtaa xilligeedii bay ku jirtaa kay doonto shukaansanaysa markaasaad ayaad eryanaysa ku dhegdhegaysaa naya isdaawo waxa kugu jira meesha youtube-kaagu ku dhex fadhiya nin aana ku qabin meher kuugu xidhnayn saaxiib aad haydeen iskuursan rabteen markuu kuu soo degay sida shafka u gelisay aad ugu dul oyday na maxaa u diiday iyadana kay jeclaatay inay gurigeeda keensatay si sharaf leh oo dhowrsan youtube-keeda hadday isla soo fadhiistay laba qof youtube-ka wada fadhiistaa bahays qabaa bayas qabin qasbiyan waa isku soo dhawaanaya naagtu ninka hadday jeceshahayna waa isku soo dhawaanaya adigu sodiga ku dhawaa sodiga ku dhigdhigayaan leega kuu saaray caawin isleeg baan ku soo saar okay haddaba ila daawo waxay ahayd videogaas maalintii airportka ay wiilka kusoo dhaweysay 19kii bishii 12aad maxaa la dhahaayay 14keedii 14kii 19ka bishii 12aad December hadda eega ayay ahayd way ila daawo 19ka haddana bishii maxaa la dhahaa 12aad isla bishii 12aad 19keedii maxaa u dhaxeeya 14 balas 19 shan habeen baa u dhaxaysa ila daawo sagana walaalayaalow ayadoo maxay sameynaysaa prank wax la dhaho ayay sameynayaan wali loo meherin gurigeedii bay keensatay waa nin aanan qabin markaas ay shafka ka saxseexanaysaa waa kan ila daawo خير أشكرنا خير كل جينا كل شيء. okay, gimana ya main sih? أنا تكلم في قمر شكمال كهلا واسمين إنك أنس قبل هاجوري ولا سيحيي how come يا برانكس كل زمان كان how come ناسيري حاولت كذا واحد وقولين كراه ما راح يصعب شمو Okay, mida ku sheegay horta waxaan kalsooni إذا أبي تجاري ama kaamirada ku soo ama gurigii dhexdiisa wayaan waa 19kii kale youtube-keeda booqda 19kii bishii 12aad 19keedii shan habeen kaliya guriga la jooga wali looma meherin meherkeedina saad ogtiin 2020gii buu dhaca ninka guri nin aan qabin gurigeeda keensatay soo adiga ma tiid naaso adiga ma tiid nin aan qabin naagta guriga keensatay soo adiga ma tiid rasmiye sabab way u erinaysaa inaan tira miskiinta waa kan qaybta kalena ila arka markii laga yaabay ayaa waxaa la sameeyay shalmad cad loo soo tuuro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
واي محد ركزي ninaan ku qabin ninkaagii ahayn xaflad ummadda islaamka oo dhan wada joogto aad ka heesay lagugu yeeray maxaad ka dhex samaysaa ninaan ku qabin naasaxaaga mana qafiifa intaad xidhatay shafkaaga naasahaaga muuqda kii shirigaad xidhnay saa hortiisa ku naqnaqnaqnaqinaysa tiisa daryeele ayaa tu kale ku daran adigii kaa shidantaa markaasaad inan yar oo miskiin ah daba ordaysaa wallaahi anigu xabso markii ay soo baxday ayaan midiyaha ka bartay ima taqaantan malaynaya iyada laakiin anigu waan daawadaa ilaa tiktokta waa lagu jira habeen dhaweeda habeenkii leefka ugu dambeeyey ay xitaa maxaa la dhahaaye inanta saaxiibadeed mutifo mehed suurabay adaan qalday magacaaga ma qabto mustalifo ay marka dambe soo wada galeen xitaa ay soo qabatay cabaar shanta uu seexanaya hortiisanahay ay tira subaxiina lagu soo dhigay ma fahanti marka xor buu qofku yahay xor bayna tahay jacayna maxaa la dhahaye qasab maaha ninkan inay isguursadaan qasab maaha gurigeeda hadday keenteena abaayo adigoo adiga saa u keenay ninaan ku qabinba gurigaa ka keensatay eriborka dhexdiisa ku oyday ku dhegdhegdhegtay hadda eeg markii dambana haddana waxaad samaysay hadda wakaas maxaa la dhahayey baarasutimo ayaa ku dhegdhegtay haddana nin baa la sheegay inaad guriga ku haysatid inuu ku qabyin kale meel lagugu horsuuriyey meel lagugu guursaday toona anaga maanan arage adigoo sidaasa oo og noloshaada waxay tahay see gabadh kale wax afkaa ugu soo taagtaa inaa ka xishood inanta yar way kaa yarta inaa kaa xishoonaysaa soomaalina iyadaaba ka badisay wallaahi bilaahi tallahi inaanan beenayni sheegay ma kuu sheegaan waxay uga badisay way u aamusta shib teeda jarta waayo dad walwaalan soomaali dad walwaalan baynu nahay qofkiin xumaan lahayn maxay ku xumaan u yeelan waay maxay iyada kaliya xumaanta u yeelay war ka xishooda dadka xitaa wiilku wuu soo hadlay si wanaagsan buu soo hadlay filimka hordhaciisan inii saarayas inta yar hor ka hadlayo de wiilkana waa wiil Soomaaliyeed kana kuna ula sheegsanaya kana uu ku guursanaya laakiin joojiya sarxumada dadka komitiyada dadka ku caaya war arrimo badan baan rabaa inaan ka soo hadlo intaas ku soo gabagabeynaya inama salaamin baan filayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hada waa ina salaamo ana taciidkiiga hay gabadha maxaa la dhahaayeen hablo badan baa waxa isoo qoreen iyo inamo TikTok meel kasta oo fariimo iga soo dhacaya maxaad ay uga hadli wada ikraan walaal ikraan waan ka hadlayaa waa gabadh walaashin Soomaaliyeed ah waxay isoo raaciyeen waliba ma waxaad uga hadli laadahay ayaan xasan walba qaasin baa calashan nooga xumaatay no lama matasho ayaan ka jecel igmina xigto oo dad Soomaaliyeed laakiin wax kasta waa quraan wax badan waan sir YouTube-ka ka hadal laakiin wax badan ayaa haddana ma garanaysaa ay as arkaan dib uga baxaya marka ma garanayo sababaha alxamdulillah baan la yaclaa kulli xaal waan nimcooyinku ilaahay bixiyo waa isku qanacsanahay alxamdulillah waa faraxsanahay waxba nagama xumaanayaan waa caafimaad qabnaa aad iyo aad baan idin salaamaya insha Allah guliyo gobonimo wax badan waa ka soo hadli doonaa fiidiyoga ku xiga fiidiyo wuxuu noqon doonaa Soomaali dhagaha faraha geliso aad baan idin salaamaya qabyaaladna ha dhamaatay insha Allah guliyo gobonimo عبايدان هذا ترتان على صحيح كرتان إنه بعادي معها أو أكو هاي استعمال ما شاء الله فاصل هلا عند الدوري ما بين سرعان ده